gabdho suuradayso guri bilaa gabdho ah, aabe bilaa gabdho ah, hooyo bilaa gabdho ah. meeqa sacaado ayaa ka maqan? qiyaastii waxaa ka maqan ayaa la oran karaa inta ka maqan beer bilaa ubax, qorax bilaa iftiin ah. waana kuwa la yidhi ninku kama dhammaado inuu carruur gablan ka yahay inta laga siinayo loogana hibaynayo gabdho. ilqabowsigooda, madadaaladooda, farxaddooda aan kala go' lahayn ay siiyaan waalidkood, ay siiyaan gurigooda ayuu alla subxaanahu wa tacaala uga hormariyey wiilasha aayadda uu uga hadlayay isa siinta carruurta. yahabu liman yashaau inaathan wayahabu liman yashaau dukuur. hadal laga yidhaahdo gabadh uu aabbaheed ka yidhaahdo waxaa ugu qaalisan midka uu nabiyullaahi muxamed uu ka yidhi gabadhiisa faaduma, isagoo markaa yidhi innahaa qidcatun minii yuriibunii maa yuriibuhaa wayu'diinii maa yu'diihaa. waa jeex iga mida aniga, waxaana idhibaya wax kasta oo iyada dhibaya. axmed binu xambal waxa uu ahaa mid marka loo keeno tahniyad gabadh yidhaahda u sheega nebiyadu inay ahaayeen gabdho aabbayaashood. camar ibnu caas ayaa waxa uu u soo galay maalin mucaawiya amiirkii mu'miniinta, isaga oo markaa dhabtiisa ay ku fadhido gabadhiisii caaisha. waxa uu ku yidhi tani waa tuma, markaasuu waxa uu ugu jawaabay haadihi tufaaxatu lqalb, tani waa tufaaxii, waa caraftii, waa wanaaggii qalbigayga. wallaahi ilaahay baan ku dhaartay sida ay qof jiran ay u caawiyaan, ugu kaalmeeyaan, mid dhintana ay ugu murugoodaan, mid murugaysanna ay u kaalmeeyaan oo u saacidaan si ay murugta uga kor qaadaan. wax iyaga la mid ahi ma jiro. waana kuwa dadka caqliga leh ay ka yidhaahdeen gabdhaha ayaanu jecelnahay, naf weliba oo wanaagsanna waxaa ku waajiba inay jeclaato. nebiyullaahi shucayb labadiisii gabdhood dartood ayuu alla subxaanahu wa tacaala uga dhigay nebiyullaahi muusa oo ah kaliimullaahi inuu khaadim u noqdo. nabigeennana calayhi salaatu wasalaam waa ka odhanaya laa takrahu lbanaat fainahunna muunisaatu lghaaliyaat. gabdhaha hanicina, ayagu waa kuwa dadka madadaaliya, farxadda geliya, guriga farxaddiisii qaaliga ahayd. haddaba qofkii la siiyey gabdho, waxaa la siiyey naxariis, waxaa la siiyey farxad, waxaa la siiyey rayrayn iyo madadaalo, waxaa la siiyey ilqabowsi. waxa uu haddaba haddii uu wanaajiyo oo uu ka soo baxo wanaaggaas la siiyey oo uuna alla uga boqo, tarbiyadeeyo, hagaajiyo, ka shaqeeyo, waxa uu helaya inay naarta uga noqdaan oo ay naarta ka difaacaan, xijaab iyo sitaarna ay uga noqdaan. sidoo kale uu alla subxaanahu wa tacaala jannada geliyey oo uuna la geliyey qof jannada lala galo midka ugu qaalisan ee ah nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wassalaam, oo ummadda oo dhammi ay u wada tartami doonto inay isaga jannada la joogaan. oo waxa uu yidhi rasuulku calayhi salaatu wassalaam man kaana lahu 3 banaatin aw 3 akhawaatin fattaqa allaha wa aqaama calayhin kaana macii fi ljannati haakada wa ashaara biasaabicihi alarbac. kadibna waxa uu gacmihiisa ayuu dadka u ishaaray, micnaha qaabka la isugu dhowaan doono oo aad nebiga uga dhowaan doonto. haddaba fursaddu hadday kula joogto ka faa'iidayso, haddii kalena alla subxaanahu wa tacaala wax badan weydiiso in uu gabdho ku siiyo.